maxaa ka jira in dadkii ugu badnaa askartii ugu badnaa wariyaashii ugu badnaa iyo shacab tiro badan oo boqolaal ah inay gaareen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo tilmaamay in nolol shaqo iyo fursado waxbarasho ay ka waayeen deegaanada maamulka Puntland wararkii ugu dambeeyay macluumaad xasaasi ah iyo xogta arrintan ku saabsan ayaan rabaa in halkan kula wadaago soo dhawo muuqaalka si gudbi la gare share gare oo la sii wadaaga asxaabtaada deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya waxa waayihii dambe laga soo sheegayay warar ah in shaqo la'aan baahsan halkaas ay ka jirto dhaqaale xumo ay ka jirto arrimihii miisaaniyadda ee shacabka loogu talagalayna aan wax looga qaban sidoo kalena lacagihii dowladda federaalka Soomaaliya ay u dhiibtay in miisaaniyaddaasi lagu kabo aan waxba looga qaban haddaba taas waxay sababtay lama arrimood oo waaweyn oo hadda aan rabo inaan kula wadaago halkan adiguna aad soo gudbiso si asxaabta kale u soo gaaro haddaba markii arrintaasi ay dhacday oo shaqo la'aan baahsan noloshii ay xumaatay shacabkii xiriir ay ku noqotay ciidamadii mushaar ay waayeen waxa ay shacabka doorteen iyo askarta iyo saraakiisha in ay u soo holeelaan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana qorshaha lagu gaaray marka hore in saraakiisha ugu sareysa maamulka Puntland ee xuquuqdoodii waayay qaarkood dagaal ku dhaawacmay guna aan la siinin caafimaadkoodina aan laga warqabin in ay gaaraan magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay u helaan nolol caafimaad iyo sidoo kale dhaqaalo sida tabinteeni hore iyo qoraalladeeni aan idinkula wadaagayba waxa magaalada gaaray askar iyo saraakiish ugu badnaa oo booliis ah oo deegaanada Puntland ka socda waxayna ka kala yimaadeen Boosaaso iyo Garowe waxayna kulan la qaateen taliyaha ciidanka booliiska ee federaalka Asad Diyaano waxayna u sheegeen in xuquuqda ay lahaayeen ay soo waayeen haddana ay rabaan in federaalkii ay ka mid noqdaan waxaan lagu soo dhaweeyay Muqdisho waxaan loo balan qaaday in darajooyin ciidan tababar iyo dhaqaale ku filan intaba ay heli doonaan haddii ay ka mid noqdaan ciidanka dowladda taas marka laga tago waxa isla Muqdisho gaaray wariyaal tiro badan oo warbaahinta afka Puntland ku hadlaysay iyo kuwa madax bannaan ka shaqeynayay oo deegaanadaasi Puntland ka yimid waxay sheegeen in telefishinadii maamulkaasi iyo idaacadihii warkooda laga tabin jiray wax xuquuq ah aan lagu siinin cadaadisna ay la kulmaayeen oo ay warkii kaliya ee hogaamiyaha Puntland ay tabinayeen oo ay waayeen fursado tababar fursado waxbarasho caafimaad iyo sidoo kale xagga tababarka saxaafadda taas ay sheegeen in ku qasabtay in ay gaaraan magaalada caasimadda ee Muqdisho waatan labaadeed sidoo kale xogaha waxay sheegayaan in boqolaal shacab ah oo caruur ay ku jiraan oo farqaha lagu sido gaadiid badan saaran in ay gaareen saacadii la soo dhaafay isla magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo raba in ay daryeel caafimaad iyo waxbarasho ay ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama dadkaasi canshuurtii ay bixinayeen wax lagu qaban waayay wadooyin lagu dhisi waayay caafimaad lagu siin waayay daryeel waxbarasho caruurtoodii ay ku heli waayeen laakiin ay ku dhacdo jeeb shakhsiyaad iyo jeeb hogaamiyaha maamulkaas lana rabo in doorashada soo socota lagu kaambin gareeyo haddii federaalka wax laga soo waayay lagu soo laabto iyaga oo haddana dhankoodii dhaqaale oo kaliya laga sameeyo haddaba maxaa dowladda federaalka Soomaaliya dadkaas shacabka ah askartaasi wariyaashaasi ka soo tagay deegaanada Puntland oo Garowe iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo ay ku jiraan tagayna magaalada caasimadda ee Muqdisho kala gudboon ma inay soo dhaweysa oo ay helaan fursadihii ay ka soo waayeen halkaasi iyo wixii uu u qaban waayay dani in ay helaan mise in la dayaco oo dhaxda ay ku dhamaan dadkaasi mise qaybta hoos noogu soo reeb aragtidaada haddii uu ku soo gaaro muuqaalkeena si gudbi ka mid noqon inta nagu xiran boggeena follow soo dheh